waxaan soo arkay maartay oromo timuhu u daban yihiin baan meydkiisa soo arkay anigu timaha u daban waad la socotaan shalay goobaha lagula dagaalamay raashinka iyagoo karsamaya loogu yimo lagu dul dilay dhufaysi hore waad aragteen muxuu ahaa dhagax adag derbiyo maxay godad muxuu ahaa qaraxyo wax isdaba yaala lagu dul dagaalamayay shalay waxaad aragteen raashinka iyagoo karsanaya baa lagu dul dilay wadciga guud ee maanta meeshuu maray dadka reer Puntland baan wax yar ku darayaa waxaan ku darayaa sidaad la socotaan go'aankii madaxweynaheenu qaatay oo ahaa in uu mashruucan ajnabi ee banaanka inaga yimi ee maafiyadu wadata ee daacish loo bixiyay ee Ciraaq soo burburiyay Sunniyiinta ee soo burburiyay Syria ee Liibiya burburiyay ee galbeedka Afrika burburiyay ee buuraheena ku soo dhuuntay ee dalxiiska iyo tabliiqa iyo siyaabo kala duwan midba inoogu soo dhuuntay qaarkood qaxootinimo ku soo galeen oo ina qalbada iyo gacmaha u fureen waa dad Sunniyiin oo muslimiin oo qaxootiya oo aynu kaararka siinay oo dawarsanayo tusbaxyada iyo cadarka wadooyinkeena ku iibinayay inay isu bedeleen maafiyo dhiigeena iyo xoolaheena ma banaysata magaaladii ganacsiga ee Boosaaso ahayd masaajidada la gali waayay ganacsigii la furi waayay culimadii hadli kari weyday ganacsigii dalka ka haajiray ay gaarsiiyeen haddaadan xoolahaaga 3 meelood meelna siin waa gubaynaa shirkadaada oo ay isgaarsiintii golis gubeen oo ay supermarketadii gubeen oo masaajidadii culimadii ka waalatay iyo ganacsatada loo haajiray East Africa iyo wadamo shee lacagtii lala aaday go'aankii ahaa inaynu gunnimada qaadan weyno oo madaxweynuhu go'aamiyay oo ciidamadii dalka diyaariyay in jihaadka la galo dagaalka la galo qayb waa lagu guuleystay boqolkiiba 95 waa lagu guuleystay waad la socotaan shalay goobaha lagula dagaalamay raashinka iyagoo karsamaya loogu yimo lagu dul dilay dhufaysi hore waad aragteen muxuu ahaa dhagax adag derbiyo maxay godad muxuu ahaa qaraxyo wax isdaba yaala lagu dul dagaalamayay shalay waxaad aragteen raashinka iyagoo karsanaya baa lagu dul dilay waxaad aragtaa meel ay u cararaan inaanay jirin masaafo ka yar 60 kilomitir oo sidaan qiyaasayno haddii aan saaka weydiiyay taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland aadan xaashi uu yiri in ka yar 30 kilomitir ama bay laga yaabaa inay ku dagaalami karaan masaafada maanta ciidanku u jiraan fayska ugu adag ay leeyihiin waa 18 kilomitir oo kamida 60 kilomitir in badan oo kamidi banaan bay noqon doontaa meel ay ku dagaalamaan ma noqon doontaan taayirka iyo suuga iyo ka hadili doona insha Allah hadii la ka dhigo mashruucaas boqolkiiba 95 waa lagu guuleystay 5 baa ka hadhay insha Allah Boosaasan oo hadeer ka imi dadka publicii waa ay ku dhiiradeen inay soo baxaan inay kii ay arkaan qabtaan kuwa baxsadka inay qabtaan inay soo sheegaan in telefoonkii loo soo diri jiray ay diidaan oo maartay ay yiraahdaan kuma siinayo lacag mashruucaasi waa damay in badan oo kamida mashaariicda lacagta ay ku urursanayeen telefoonadii iyo nadwageedii waa la jabiyay waa la hayaa xogtoodii baxsad bay ku jiraan al madow baa inoo hadhay insha Allah iyadana waynu ka taqalisi doonaa hadii Allah ka dhigo waxaan doonayaa inay noqoto mobilizationka ama kacdoonka dadweynaha oo jira oo dawladda iyo ciidanka lagu taageerayo inuu intii ka sii xoog badnaado in iskuulada casharada wadaniyada lagu qaato in aqeedada faasidka culimada ka digto soo baxaan ma jiro caalim ay hadda u dhaaran doonaan oo oran doonaan muxuu ahaayay ma fadwoon kartid maadaa naga fadwoon kara ma jiraan ganacsada ay oran doontaan lacag nooma diidi karto waan ku dilaynaa mashruucaas ajnabi buu ahaa waa soo afjaray waxaan soo arkay maartay oromo timuhu u daban yihiin baan meydkiisa soo arkay anigu timuhu u daban yihiin baan meydkiisa soo arkay waad aragteen kii warqadiisa jeebkiisa laga soo bixiyay Amxaariga ku qorayd badda cas intaas oo kiiloomitir bay ii jiraa ay ku qorayd waa mashaariic ajnabi oo ayna garanayn meel ay ka socoto hase ahaatee ilaahay baa mahadle madaxweynaheena ku mahadsan ciidankeena boqolkiiba boqol ku mahadsan shacabkeena isgarab taagay baa ku mahadsan dadka reer Puntland maarta oo mandaqadan ku nool baa taariikhiyan u lahayn inay ogolaadaan faragelin shisheeye caalam guba ka soo bilow Said Maxamed ka soo bilow maarta Suudaan Maxamed Ali Shira ka soo bilow boqor Cismaan ka soo bilow yani dadkan waligood ma qaadan faragelin shisheeye lagamana adkaanin cadow intuu ku soo duulo kama adkaanin waa tii oo kale waa shisheeye waa cadow caqiidadoodu ay faasid tahay dhiiga iyo maalka iyo cirdiga muslimiinta banaystay damcay inay magaaladii ganacsiga ee Boosaaso inaga faramaroojiyaan oo iyagu qaataan oo masaajidada la gali waayo ganacsiga la furi waayo siyaasiyiintu ka cararaan waynu soo afjarray waxaan ku boorinayaa inta hadhay waynu israacinaynaa qiirada iyo dhiirigelinta iyo xogta
عيدا كأمني قال السينيو هل كان لقى سيود أنت وكليه هدي علماء إن شاء الله الله سيو مارتي الله حفظه خديب كنا هنقطه ما أنت واحد ضدك مسلمين توجبه هبديهين إلا جبوريو جهاد بين كجرا جهاد كاسي ودكتين أحكامتي فرد العين يوحولي فرد الكفاية قف كسورية بدلنا فرد العين بكويه طاقد هذا أود هذا يكون حرام هذا أود بقول قد قادن كرتا ممال بحين كرتا مياد هل كرتا بدل وعي قليل كرتا يعني أنت كرتي هذا مارتي تشيس بيجا قال لك قليل يكرتي هذا قف نمو بيكون حرام تهاي واحد قبل كرتا لكن قف كسوا كوا تشاه اللوجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديك كافتون بنجي السلام وأديك وسهل إن لعقتك وجوش تا كون كاج بنجي عاد كلب كرتو أما أديك كرتو أديك وأديك سنة موبيل كجوليس حلي كسته بيني مالين بقى سيخدم الله أنا أديك وأم بوقن حرمها بنجي